بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دوادا برنامجka falaaqaynta wararka barnaamijkan caawa qodobada aan idinku hayno waxa kamid ah ma dhab ah in Netanyahu lagu wargeliyay 3 bilood ka hor markii uu dhacayay weerarkii duufaanta al-Aqsa bishii Oktoobar 2023 in uu duqeeyo marka Gaza oo uu ka hortago weerarkaasi Hamas ay soo qaaday maxaa ka jira in arintaasi darteed ay tahay sababta haatan uu diidan yahay Netanyahu in la sameeyo guddi baaritaan madax banaan ku sameeya fashilkii taariikhiga ah ee Israa'iil ku dhacay 7 Oktoobar 2023 markaas oo xoogagga iska caabinta Falastiiniyiintu ay dardareen difaacyadii Israa'iil gudaha Israa'iil ay ka dagaalamayeen ku dhawaad 12 saacadood 250 qofna ay ka soo qifaasheen in ka badan 1000 qofna halkaasi ay ku dileen oo u badnaa askar sidoo kale barnaamijku waxaynu ku eegaynaa Israa'iil oo dhagataag iyo feejignaan ku jirta sababta maxay tahay waa booqashada aqalka cad ku tagi doona toddobaadka dambe dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman laakiin maxay Israa'iil qoonsanaysaa oo ay booqashadaasi indhaha ugu haysaa Maxamed Cadde ayaa soo akhriyay macluumaadkaas oo idil Maxamed waanu imaan doonaa sheekadan ku saabsan Netanyahu in lagu wargeliyay 3 bilood ka hor weerarkii 7 Oktoobar in ka hortago weerarka ay waabulayeen Hamas laakiin aan ku hormarno maxay tahay sababta Israa'iil isha ay ugu haysaa socdaalka la filayo inuu ku tago Washington dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga waxa cinwaan laga dhigay Israa'iil ayaa feejignaan ku jirta la xiriirta kulanka bin Salman iyo Trump dhexmari doona heshiiskoodana waxa uu jihayn doonaa baa leeyahay wadada Netanyahu Israa'iil ayaa diblomaasiyad weyn iyo siyaasad iyo amni gelisay feejignaan isu diyaarinaysa kulanka maalinta Talaadada dhexmari doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka leh dhaxalka boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman sida uu qorayo wargeys afka Hebrew ku daabaca oo Maarif yiraahdo dhowr arrimood ayaa lagu xiriirinayaa mustaqbalka bariga dhexe iyo inay suuragal tahay mustaqbalka madaxweynaha Mareykanka uu ka leeyahay caalamka ayaa arintan xudun u ah iyo wadaxaajoodka miiska saaran waa jirtay marka arrimaha Israa'iil ee ka walwalsan tahay wararka qaarkood waxay leeyihiin waxa kamid ah Sacuudiga oo doonaya diyaaradan la yiraahdo F-35 oo Israa'iil ay tahay cidda kaliya ee haysata gobolka bariga dhexe halkaas maxaa laga sheegay wargeyska ayaa soo xiganaya ilo xagga siyaasadda Israa'iil oo sheegaya Saudi Arabia in ay kulanka la imaan doonto boorsooyin waaweyn oo lacag ka buuxdo sida lagu tilmaamay waxayna raadinaysaa inay iibsato mufaaciliin ama qalab nuclear koronto looga dhaliyo diyaaradaha F-35 la yiraahdo raadarada ka dhunta iyo diyaaradda kale casriga ah F-15EX la yiraahdo hubka ay ka mid yihiin gantaalada diyaaradahaas ay ridaan ee wax lagu weeraro iyo qalab kale taa beddelkeeda Saudi Arabia ayaa waxa ay ku biirinaysaa dhaqaalaha waddanka Mareykanka lacag badan oo barataar ah sida wargeyska uu qorayo arinta kale ee xigta ee miiska saaran ee walwalka waxa weeye in la abuuri doono gobolka bariga dhexe oo isbedel lagu sameyn doono su'aasha xudunta u ahna waxay tahay in Saudi Arabia uu ogolaan doono in uu garwadeyn ka noqdo labadaas arrimood laba arrimood oo xasaasi ah oo laba heer kala ah waaya marka hadaynu ku socono labadaas arrimood tan koowaad maxaa lagu sheegay midda hore waxaa lagu sheegay in dowladda Saudi Arabia ay la wareegto gabi ahaanba mas-uuliyadda siyaasadeed waxa ka dhacaya marinka Gaza markii Israa'iil ciidamadeeda la baxdo iyo dowladda Mareykanka oo doonaysa in Saudi Arabia loo tixgelinayo waddan ay siyaasaddiisu furan tahay dhexdhexaadna tahay
in uu muhiim u noqdo xoogaga marinka Gaza xasilinaya. qodobka labaadna waxaa lagu sheegay in la ballaariyo heshiiska Abraham loo yaqaano oo lagu daro Saudi Arabia inay heshiis gasho, taasoo horseedi karta tallaabooyin isxiixiga oo ay ka mid yihiin dalal kale oo ay ka mid tahay Suuriya inay heshiis kusoo biirto. waa gartay dhanka Israa'iil gaar ahaan Netanyahu sidee arrintan uga walacsan yahay ama isha ugu haya? siyaasiyiinta Israa'iil ayaa ku qiyaasaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu ka dhir sugayo natiijada ka soo baxda kulanka Talaadada dhex mari doona madaxweynaha Mareykanka iyo amiir kale dhaxaltooyada boqortooyada Saudi Arabia. arrimahan oo dhan waxay ku xirnaan doonaan macluumaadka ka soo baxa qaska ka taagan isxulufaysiga iyo qaabka qaanuun ahaan iyo dooda doorashada loo dhigi doono wadanka Israa'iil. intaa waxaa dheer in dhaqdhaqaaqyadan ay sameynayaan ciidanka Israa'iil ee marinka Gaza iyo waqooyiga marinka Gaza, halka wargeyska Maarif yiraahdo uu ku tilmaamayo kulanka soo socda ayaa waxa uu noqonayaa mid muhiimad weyn u leh mustaqbalka iyo wadada uu mari doonana Netanyahu ayadaa jeexi doonta. waa gartay isla warbiximaha arrintani ku aadan waxaa kaloo looga hadlay socdaalkii dhawaan uu ku tegay aqalka cad madaxweynaha Syria Ahmed al-Sharaa. maxaa arrintaasna dhanka Israa'iil laga sheegay? Maarif ayaa tilmaamaya booqashadii madaxweynaha wadanka Suuriya Ahmed al-Sharaa uu ku tegay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington iyo kulamadii uu la yeeshay mas-uuliyiinta uu ka mid yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, halkaasoo Sharaa uu wareysi siiyey wargeyska afka dheer ee yiraahdo The Washington Post kadib markii booqashadii taariikhiga ahayd uu ku tegay aqalka cad si toosana uu taabtay arrimaha xasaasiga ah ee dowladda Suuriya soo wajahaya marka ay timaado xiriirka Israa'iil leedahay. warfidyeennadii uu la hadlayay ayaa madaxweynaha Syria waxa uu sheegay in wadankiisa uu weli ku dadaalayo sidoo heshiis nabadeed oo la gaari lahaa Israa'iil, hase ahaatee shuruudo ayay tahay inay Israa'iil fuliso oo ay ka mid tahay madax bannaanida wadanka Suuriya inaan ahayn wax laga gorgortamayo oo mudnaanta koowaad ay tahay in la siiyo waxyaabaha heshiiska keeni karana ay ugu horeyso. waa gartay Ahmed al-Sharaa waxaa kaloo wareysiyadaasi uu kaga hadlay arrimaha la xiriira suurtagalnimada Israa'iil xiriir ay la samaysato Syria. muxuu ka sheegay dhankaas? Sharaa ayaa ku nuuxnuuxsaday in Suuriya ay wadaxaajood toosa la gelayso wadanka Israa'iil, horena ay u bilaabeen qaar ka mid ah isafgaradka, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in mustaqbalka heshiiska la gaaro ay waajib tahay in lagu daro in Israa'iil ay xuduudkii u dhaxeeyay labada dhinac wixii ka horreeyay bishii Juun 1967 dagaalkii dhacay ay ku noqoto. Israa'iil ma sii wadi karto inay dhulka Suuriya xoog ku sii haysato. arrintanna waxa ay fure u tahay nabadda, ayuu yiri madaxweynaha Syria. sidoo kale waxa uu si furan uga hadlay aragtidiisa la xiriirta dhaqanka Israa'iil, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday inay xadgudub ku samayso dhammaan heshiisyadii hore, waxaasna ay yihiin waxyaabaha keenaya colaadda. waa tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaal. waxaan u gudbaynaa qaybta labaad ee barnaamijka oo aan idinkugu hayno warbixin xasaasiya oo la xiriirta in Netanyahu lagu wargeliyey 7 Oktoobar weerarkii dhacay 3 bilood ka hor inuu sameeyo weerar ka hortaga, laakiin arrintaasi uu ka gaabsaday. intaan idiin soo gudbin sheekadaasi oo warbixin xasaasiya aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii falanqaynta wararka. waayahay maxamed inooga waran arrintan la xiriirta Netanyahu in lagu wargeliyey dhaqdhaqaaqyadii Xamaas ay wadeen iyo inuu sameeyo weerar ka hortaga wixii ka horreeyay 7 Oktoobar 2023 markaasoo iska caabinta Falastiiniintu ay qaadeen weerarkii loogu magac daray duufaantii Al-Aqsa. dukumeenti sir ah
ayaa muran weyn ka dhaliyay Israa'iil gudaheeda. Netanyahu ayaa wuxuu ku gacan seeray in uu Xamaas bartilmaameed ka dhigto 3 bilood ka hor inta uuna dhicin dagaalkii Oktoobar 7-deedii. Janaralka 12aad ee Israa'iil ayaa sheegaya dokumentigan sirta ah in xafiiska Netanyahu la geeyay 3 bilood ka hor weerarkii Oktoobar 7-deedii 2023 waxaana ka mid ahaa waxyaabaha dokumentiga ku qornaa talo bixin ka imaanaysa madaxii ciidamada sirta gudaha Shin Bet loo yaqaano oo loo sheegay in weerar gaadma oo hordhaca uu qaado oo ka dhana ururka Xamaas ee Mareykanka Gaza ku sugan. Sababtoo Netanyahu ayaa ku gacan seeray wixii ka dambeeyayna marnaba dood lagama yeelan. Macluumaadkan soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan Netanyahu weli inuu diidan yahay in uu sameeyo guddi rasmi ah oo baaritaan ku sameeya sababaha keenay guuldarradaasi ka horreeyay dagaalka marka laga gudbo in 2 sano dagaal la isku riiqday oo Israa'iil iyo Xamaas dhex marayay oo noqotay waxa lagu tilmaamay inuu ahaa masiibadii xagga amniga ee ugu khatarsaneyd taariikhda ee Israa'iil soo martay. waa garta marka wargeysku ma sheegayaa warbixintan cidda diyaarisay gaar ahaan warbixintan qarsoodiga dokumentigan waxaa diyaariyay ciidanka sirta gudaha gaar ahaan ninkii markaas madaxda ka ahaa Ronen Bar oo mar dambe uu shaqada ka eriyay Netanyahu wuxuuna diyaariyay July 2023 3 bilood oo ka hor Oktoobar markuu dagaalka dhacayo Oktoobar 7-deedii wuxuuna soo bandhigay qorshe istiraatiijig ah oo sanadka 2024 loogu magac daray sida loo cabsi gelin karo ama Israa'iil ay ku xagsan karto in laga baqo maadaama xaaladuhu ay isbedelayaan. wuxuuna ku baaqay in weerar gaadma oo military lagu qaado ururka Xamaas militariguna ay tababaradooda bilaabaan ballaariyaan khaarijinta ka dhanka ah siyaasiyiinta ururka Xamaas diyaar garow joogta ah ciidamadu galaan. saate dokumentiga geeskiisa ayaa Netanyahu waxa uu ku qoray isagoo biirihiisa isticmaalaya hadda ma aha buu yiri fariin ka timid madaxa Shin Bet oo macnaheeda loo akhriyay inuu ku gacan seeray talooyinka la soo jeediyay xagga amniga ah iyo inuu farageliyay xukuumadda istiraatiijiyadeeda xagga amniga iyo guuldarrada ku timid in dokumentigaas laga wada xaajoodo oo hay'adihii dowladda ay ka wada hadlaan. waa garta marka doodahan hadda socda ma la oran karaa dokumentigan soo baxay xagga Netanyahu wuxuu ka dhigayaa mid difaac la'aan ah oo noqonaysa markaasi inuu iska indhatiray dignitan la siiyey maxaa halkaas laga sheegay dokumentiyaasha intaan la helin ayaa nidaamka qaabku isu difaacay Netanyahu ayaa waxa ay la jaan qaadaysay dhaleecayno xoog leh inay kusoo wajahlayeen. hase ahaatee muddo dheer ayaa lagu eedeynayay in ciidamada amniga ay shaqadooda qabsan waayeen halka dokumentigan uu muujinayo Netanyahu inuu yahay cidda iska indhatirtay talooyinkii ay xagga amniga keeneen diidayna inuu weerar gaadma ah ku qaado ururka Xamaas. sida warbixinta ku xusanna dokumentigan waxa uu qayb ka yahay xog ururin toddobaadle ah oo ra'iisul wasaaraha loo soo gudbin jiray sir ahayd mana noqon mid dood laga furo oo Netanyahu uu kulan ka qabto kadib markii Netanyahu uu diiday in lagu daro ajandihii qodobadii looga hadlayay arrimaha amniga. waa gartay warbixinta waxaa kaloo leeyahay waxaa ku jira mowqifyadii hore ee Netanyahu xilligii uu ahaa mucaaradka dhinacaas maxaa laga sheegay warbixinta ayaa sidoo kale soo bandhigaysa mowqifyadii hore ee Netanyahu intii uu xukunka hayay oo iyo intii uu ahaa madaxa mucaaradka 1990 kadib markii dagaalkii labaad lala galay wadanka Lubnaan
markaas oo ku celiyay baaqa ah in la abuuro guddi baara madaxda dowladda xilliyada ay qalalaasaha jiraan. wuxuuna ku nuxnuxsaday in mas-uuliyadda ay cid ka bilaabato, mas-uuliyiinta sarena kasoo bilaabato, halka maantana ay asaga tahay cidda hortaagan in la abuuro guddi rasmi ah oo baaritaan ku sameeyay guuldaradii ku timid weerarkii gaadamada ee ururka Xamaas 7 Oktoobar 2023 ay qaadeen. waxaadna moodaa mowqifkii hore iyo mowqifkan inay si weyn isaga hor imaanayaan. maxaa lagu soo gabagabeeyey warbixinta maxamed? warbixinta waxaa lagu soo gabagabeeyey in dib u eegis lagu sameeyo dokumentiyaal kale oo muujinaya Netanyahu oo hore ballan qaaday inuu xukun ka tuurayo ururka Xamaas, in uu ka shaqeynayay siyaasaddaas mid cagsi ku ah. waxa uu lug ku yeeshay inuu u ogolaado lacaga qadar ka imaanayay in loo wareejiyo Xamaas iyo ururka Gaza, in heshiisyo ay kala bedesheen oo ay ka mid tahay in boqolaal maxaabiista loo sii daayo ururka Xamaas, iyadoo ay Xamaas markaasi ku jirtay qorsheynta Oktoobar 7. warbixinta ayaa waxay hoosta ka xariiqaysaa intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2020 hay-adaha ammaanka inay dhowr goor digniin siiyeen ra'iisul wasaaraha in ururka Xamaas militarigeeda ay qayb ahaan kontroolaan lacagaha qadarka imaanaysa, siina wadaan siyaasad ay ku yareysanayaan awoodda military ee Israa'iil, loona ogolaaday in kooxdaasi ay awooddeeda dhisato. waxa dhacayna haddee cid kasta og oo laga sheekeyn maayo inay awooddeeda noqotay mid jabisa mid ka mid ah ciidamadii ugu weynaa bariga dhexe. waa tahay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii falanqaynta wararka. daawade, si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha allah. inta ka horeysa nabadgelyo.